taniyo markii dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay kala siixdeen heshiis ka kooban dhowr iyo 10 qodob waxaa soo baxayay maalmihii ugu dambeeyay dhaliilo loo jeedinayo heshiiskaasi. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo shir jirayd ku qabtay magaalada Muqdisho waxa ay taageereen heshiiska oo ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana ay shaaca ka qaadeen in dad dana gaar ah kale ay si qaldan u fasireen heshiiska. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya markii uu ku laabtay Addis Ababa markii uu hadlay hadaladiisa waa dhageystay si wuxuu u hadlay ka bedelan sidii ay madaxdii hore u hadli jirtay si wuxuu u fasiray heshiiskaas in xorka u leeyahay iyo amniyada u leeyahay inuu ka hadlay dadka marka Soomaaliyeed ee heshiiskaas sida qaldan mataqaana bulshada oo mataqaana ugu fasiray waxa loo baahan inaan dadka la qaldin oo dadka shacabka ah waxa xaqiiqada loo sheego meeshan dal la qaadanaa ma yaalo dad baa waxay ku leeyihiin Soomaaliya mataqaana waa la gatay cid la gadanayo illa xarasho kara ma jirto cidna hadii la gadanayo marran mataqaana wadankan la qaadan lahaa waxay ogtihiin colaad daba dheeraatay oo Soomaaliya Itoobiya inay jiri jirtay laakiin waxa la rabaa dagaalku markuu dhaco in laga gudbo annaga Itoobiya dirisanahay. siyaasiga Salaad Cali Jelle oo dhankiisa ka hadlay heshiiska ayaa aad ugu nuuxnuuxsaday qodobada qaar ee heshiiska sida dhaqaalaha, amniga iyo diblomaasiyadda wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaalida heshiiskan uu dana badan ugu jiro waxaana uu shaaciyay in dhaqangalka heshiiskaasi loo mari doono hay'adaha ku shaqada leh. waxaan u fahmaa aniga inay odoros tahay laakiin midnimo hadii ay imaanayso Soomaaliya waxaynan ogolayno midnimo imaamayaan haddana heshiiska kuma jirto oo kuma jirtaba waa aragti isaga u gaar ah oo asoo ka dhawaajiyay inuu ka dhawaajiyana waqtiga hadda lagu jiro ayaa wuxuu yahay waqtigii la midoobi lahaa oo adduunka dhan qaaraduhu ay midoobi lahaayeen marka hadii qaaradda Afrika oo dhan midoobaysana hadii geeska Afrika saan wax yeelna inay mustaqbalka ka imaaya wax cad waa annagana dekadiyaan hayna badiyaan hayna iyaguna waxay haayaan tiro dadeed waxay u baahan yihiin marka inay ganacsigooda kala soo degaan dekadaha Soomaaliya annagana inaan canshuurano oo aan saarano sentiniskeena oo aan markaas halkaas ma taqaana aan batrooni ka naqano ayaan u baahanaa marka budaqabe iyo biyo qaba way soo baahan yihiin anaga Itoobiya. siyaasiga Salaad Cali Jelle oo ka hadlayay heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sheegay in dadka ka hor yimid ay taageerayaan waxa loogu yeero argagixisada waxaana uu tilmaamay in ay tahay in lala dagaalamo sida loola dagaalamayo argagixisada ay markii hore loo maleeyay inay qof Soomaaliya ama qof argagixisada ka fog markaad markii hore u haysatay hadii ay argagixisada taageerto marka in argagixisada lagu daro oo la yiraahdo war argagixisada taageertiine dhibaatadaad ummadda Soomaaliyeed ku heshiin waan ognahay waxa la idinka rabaa inaad arintaas ka waantowdaan hadaad ka waantoobi weydiina argagixisada shuruucda ay qaadanayso ayaad idinkuna qaadanaysiin. Abdulaziz Ibrahim Ahmed TV Universal magaalada Muqdisho.